السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موناكسنتين magaalada Hargeysa ayaan kasoo salaamaya magaalada Hargeysa aan joogaa inkastoo maanta ay tahay maalintii wadani oo magaaladiiba saas ay isu qabsatay magaalada waa wadani oo dhulkii baa gariiray oo cirkii baa gariiray adduunyada waa wadani maanta sida kale waa fiicanahay malaha 20 saacadood baan joogaa magaalada Hargeysa magaaladu waa cirkaasi maraysa adduunyada dadkii cirkaasi marayaan magaalada nuurkeeda soo baxay sheekadii ugu horeysay la sheegaa oo xalay toona aan qosriyay ayaan idinka sheekeynayay laba nin baa jaar ahaa baa la yiri Hargeysa magaalada Hargeysa ka dhacday sheekadani laba nin baa jaar ahaa deetan wuxuu lahaa 5 ciyaal midna wuxuu lahaa 4 ciyaal kii waxa guursaday dabeetana maxaan radaa 5 ciyaal lahaa baa guursaday markuu 5 ciyaal guursaday bay gabadhii xanaaqday gurigii bay ka tagtay way masayrtay way socotay oo gurigii bay ka tagtay markii xanaaqdu soo misbisana ma aragtay haysatidna ma diinta afar banaysa ma macaani raali ahaw ma mirdad gursatay waxay tiri carruurtadi waxa gara kaas qaxayso deetana u geyso naagta gursatay aad la cararaysid u geyso aan ma barka kare way yiri wiska aroostay deetana yes kii afarta ciyaal lahaa gaariga arooska soo agmaray uniyo markaas uu leeyahay uniyo waa maxay arooska iyagu waa maxay arooska bisali allah war ma haysid miyaha وسمو قدون هبل كورسدي كسوحيلي هبل كي ما هبل صاحبكي ما كان اسكفر يا صاحبي دنا اساسي يقول كورسني ناقتني halkan ay igu haysataa ana halkan iska farfadhay inaan guursado way tallaayo afar bay dhashay hadda de waa iska doo waxaan noqonay weynaan iska guursadaayo maxay naagtan halkan iska fadhiyaa bay naagti ay guursaday muxuu guursaday warram muxuu guursaday saliidi wuxuu guursaday de gabadhii heble ee maxay haytooye gabadhii maad garay hebel kala tagay 5 caruur lahayd markaasuu diyaa maxaa tiraadeen gabadhu guursan ninka 15 jir baa masoo 18 jir masoo 20 jir kaasuu xiyiri may gabaxa waru heblu guursaday gabadhii 5 caruur lahayd noocaas ahayd way hayeen buudi arooskii baa dhamaaday gabadha ninkii waa la aroosay arooskii baa dhamaaday dhagu iska degay maalintii buu ninkii waan guursanayay maxay tiiyay wayna iga soo qabshay afakii baa yiri afarta caruur lahaa waan guursanayay waxaan rabaa inaad ka soo qayb gashay arooskii ma diyaar weey maxaa kugu dhacay gabadhaada hor muxuu masuulay ka bax waxaas aniga maxay tuga adigu gabadhaadi de waata aniga iga xanaaqday markaan guursaday gabadhan cusub guursaday caruurtina gabadha cusub baa ay haysa way buu gabadhii sidoo kaxeeyay wuxuu geeyay meel sayluun wuxuu reenaa waxaad ka soo dhigtaa xaliidale iska soo dhig markaasuu maxay haytay tii way guriga u jid gabadhii afarta caruur u dhashay ee guriga u deganeed buu kaxeeyay hotel sayluun buu geeyay aroos buu u dhisay ninkii baa ka soo qayb galay ninkii wadi ninkii wuxuu gabadha gursan saaxiib aduu iska baxay markii uu sheegin arooskii buu kaal maxay noqon saaxiibo iga soo qayb gal miswa gabadhiisi war waa maxay warinkaar kugu dhaw markaas uu xiri saaxiib dhageyso anigu buu yiri haddaan gabadheeda ka xanaajinayo oo gabadheeda ka maseersiinayo buu yiri kolleyba haddaan gabadheeda ka maseersiinayo oo guursanayo buu yiri waxaan guursanayaa buu yiri gabadh adigu da'deedu ay tahay 12 jir waa haddaan gabadheeda ka xanaajinayo buu yiri ma fahanti laakiin gabadheedu 4 caruur ay dhashay ka tago gabadh kale 4 caruur dhashay kaga xanaaji عقلك ما كيريسو marka wax weeyaan maadaama aan guursanay mid afar leh taydii baan dib u aroosaya macnaha maxay taygtay ila afar mugti afarta inta ka tago afar kale uma tagiye tayd laakiin adigu waxa aad khasaartayo intaad shantaadi ka carartay baad mid shan la guursatay bal ma taada dib aroosatay shantaadi guursatay marka anigu maadaama aan hadaan guursanayo inaan guurso iga soo godo oo gabadheeda ka xanaajinayo gabadh yar oo 14 jir 15 jir adigu 15 jir iyo 20 jir inta u dhaxayso baan guursan karaa aan gabadheeda kaga xanaajin karaa laakiin haday hal dhashay xataa laba haday dhashay xataa ma ay yiri kaga ma xanaajinay ma guursanayo bas ninkii intuu yaabay oo shoogay buu yiri oo yiri adigu ma waalantahay adigu 10 caruuraad isku raasday ma shantaadii oo ay taadi kaaga tagtay iyo gabadha kale oo 10 ka caruuraad isku doonay hadda maxaad kororsatay 10 caruuraad ku haysid maxaa baday ku galiyay aniga maadaama aan afar guursanayo gabadh afar leh taydii ma iska noqonaya afar waa ka afar mugtahay gabadh waa iska gabadh mar walba afartii magaalada Hargeysa sheekadani ka dhacday marka hadii gabadhii laga xanaajinayo xalay markii la iga sheekay xalad oo qosay wallahi magaalada ka dhacday wallahi beenna ma habali magaalada ka dhacday ninkii waa u fikiray wuxuu kolleyba hadan gabadh guursanayo
oo aan aroos geliyo gabadha miyay 25 jir ka hooseysaa may ma guursanayo yidhi afarta taydan dib aroosiya tiina farxadii wax leeri gabadhiina waxaan ku uri awal way dhuumnayd oo maxay haytay waa iska dhuumnayde adduunyada saa intay u booday bay wax kalar xataa waxay yeeratay kalarka xabxabka markii hore kalar yar wax iska caadi dib bay xabxabbay kalarka xabxabka yeelatay way yaabtay waxay tiri adduunyada ninkayga rikoodhku jabiyey waan rood rikoodhku jabiyey kalarkeeda xataa wuu isbedelay xabxab buu noqday way dhuubnaydee waxaan ku uri waxay noqotay gebigeediiba waa la yaabay waa la isu soo baxay kiina 10kii caruura ayuu ilaa abtanowsaa ula 10kii caruura tiina kaga tagtay 10kii caruur gabadhi kale isku haysa qaylo iyo wareer iyo qarrac buu doontay iyo caruurtii maalin hooyadii baad naga furtay markaas noo keentay mid kale 4 wadataa 4 anagoo ma 5 aad maxay timid kale 5 wadata noo keentay 10 baan isku noqonay aab waxbaad waashay marka arintaas ayaa hargeysa xalit hore la iga sheekeeyay idinku arrintaas ka warama